بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ مانتا وأفرته بش السديدات ولا بدأ كون إيه سديد يتوقع. عنوانك وحوا كقرن برامج كان توسكا كذا ونسان بوجيجا وحكو قرن حقوق الدنبيي تلسكي عبديلي أما جبجبده تلسكا عبديلي براها بالشدة وحوي وادو شديد وركا إن سو قارية وحكا صعدة تكتيكا وحكا صعدة دولك الصوماليات إثيوبيا حوجة كويسة دولميجا سندها بدن سو سعودي وأمه إن شاء الله إنه إمك بلامي لما تكي دولميجا سينو سورة إن شاء الله بإذن الله الكريم marka ugu horeysa warkii ugu dambeeyay aynu kala qaadano warka ugu dambeeyay waxa weeye ciidamada federaalka Ethiopia ee haysta dhulka Soomaalida ayaa qabsaday dhamaan ama inta badan xarumaha ugu muhiimsan dhulka Soomaaliyeed ay Ethiopia haysato طبعا dadka qaar waxa u yaqaan dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia laakiin Somalia Ethiopia ma jirto waxa weeye dhul Soomaaliyeed oo Ethiopia haysato xarumihii ugu muhiimsanaa oo u muuqda in yani laga tuurayo ama xilka xoog looga qaadayo Cabdiile oo ilaa imika aan la ogeyn ama aan sugnayn warkiisu halka uu ku dambeeyay kadib markay xarumahaasi la qabsaday waxa aynu aragnay ciidamadaas oo lagu banaan baxayo iyo hantidii magaalooyinka Soomaaliyeed ee dhulkaasi oo la boobayo iyo hantida dadka aan Soomaalida ahayn u dhashay Ethiopia kale oo la burburinayo intaasina way noo muuqatay waxay meelo kala duwan oo la gubayo dhimasho waxa la sheegayaa laba qof ugu yaraan inay ku dhinteen rabshadaha ku dhinteen waxa la sheegayaa meelaha wax la yeelay bangi loo yaqaan bankiga Oromia waxa aynu aragnay oo kale barnaamij toosa oo mujrimka la yiraahdo khadar dheere ninka la yiraahdo khadar Cabdi Ismaaciil waxa weeye waa ninka reer Dhagaxbuur Cabdiile seediga la oo kamid ah mujrimiintiisa gacan yaraha maanta barnaamij toosa ka duubayay qayb ka mid ah taliska Cabdiile barnaamij live ah oo ama toosa oo Facebook oo ay soo galeen maanta lafteeda taariikhda marka saacad marka ay COVID-19 aroornimo waynu arkaynay taliskii oo barooranaya oo maanta ka sheekeynaya Soomaalinimo al'aana inaguna waxaan leenahay al'aana ma imika ma soconayso maanta in taliska Cabdiile ka sheekeeyaan ay yiraahdaan waxa weeye Oromaana soo weerartay iyo maxay dhulkayga qabsanaysa iyo ma ogolin inay yiraahdaan ma ogolin qowmiyad inay qowmiyad qabsato idinka u gacan galiyay idinka u jiciyay Soomaalida Ethiopia idinka u jiciyay idinka u baaba'saday idinka dhulka qurumsaday idinka maxay jeelogaadeen buuxiyay maanta ma soconayso اليوم لا ينفع الندم maanta qoomameynta la idinka yeeli maayo waxa weeye xilligii baa la gaaray daalimka Ilaahay markuu qabto ma sii daayo waa loo yani seeta dheereeya waxa weeye marka mar uu Ilaahay qorsheeyay qorshihiisa intay doonto baa noqotay markaasna lama sii daayo waxay u muuqataana inay markii la gaaray nimanka iyaga ah yani waa xubno sarsare oo kamid ah taliska Cabdiile kamid ah way soo fadhiisteen barnaamij toosay soo galeen waxay leeyihiin maanta yani ciidamada la dul keenay bay leeyihiin amaankii meeshii nabad ahayd bay leeyihiin meeshii nabad ahayd bay qowsay waxa weeye nabadeedu way tagtay annagoo si fiican u nool bay yiraahdeen ciidamada la dul keenay xarumihii waaweynaa xarumihii dawladda ciidamadii federaalka yimi madaxweynahoodii iyaga bayna qowsay madaxweynahoodii iyaga meeluu ku dambeeyo mooga marka waxay ugu baaqeen waa nimanka mujrimiinta ah soo galay barnaamijka tooska waxay ugu baaqayaan shacabka Soomaaliyeed ay ugu baaqayaan ee ku nool dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia waxay ugu baaqayaan inay kacaan oo ay gadoodaan oo ay dagaalamay leeyihiin ciidamada federaalka la dagaalama yani waa markii ugu horeysay maxaad oo dhan weydeen hore u dagaalama Soomaalida weydin dhageysan lahayd Soomaaliya waxay wada raaci lahayd imika leeyihiin maanta ciidamada federaalka la dagaalama waxay ku sheegeen
ciidamadii muxuu ahay federaalka waxay yidhahdeen waxa weeye waa oromo ay ku yidhahdeen waxa weeye la dagaalama waxa weeye lama waa ninka muxuu ahay haysto gobolka oromia iyo muxuu ahay abiy axmed la dagaalamayna nimankaasa ka dambeeye oo oromo ah yani markaa waxay doonayaan inay inoogu sheekeeyaan maanta waa soomaali iyo oromo hadda iyagaa dadka muxuu ahay odhan jiray dhulkan waxa weeye dhul ethoobiyaana waxa weeye ethoobiyan baan waanu ku faananaa waana ilaahay baa u mahadnaqi jiray inuu ethoobiyan ka dhigay soomaalida kale waxay ugu baaqayaan soomaaliyeey bay leeyihin ma anfacayso maanta marka waxa weeye qarqara waxa weeye naftu markay sii socoto waxa weeye qarqarada ayay maanta muxuu ahay naftu ka sii maraysaa qolyahaasi way ku daayeen abaalkoodana waa inay helaan taliskii cabdiilay waxa la sheegaya warar kale way sheegayaan wallahu aclam dadka cabdiilay taageera baraha bulshada waxay sheegayaan cabdiilay waa nabad qaba wuu hadlayaa waxa weeye cabdiilay arrin muhiim uu ka hadlaya talo miyuu goosanaya muxuu odhan doonaa waan goosanayaa buu odhan doonaa waxaan isagaa ka dambeeya isagaa doonaya inuu muxuu ahaa si rabshad sii kiciyo laakiin miyuu goosan doonaa oo wuxuu odhan doonaa cabdiilay wuxuu odhan doonaa waan goostay oo waxa weeye waxaan ka goostay Ethiopia ayaan muxuu ahaa ka goostay ayuu odhan doonaa موتي وحكوا هذا الدولة بل وين يقدرنا عبد الله هدو ما انت سحر وهذا يو ويقدرنا ممكن وحنا صورة قلا إن لا يلاهض أما اللي جو خص بابا إنه يسعى السلام ويلاهض هو وروان كتجي ماشى اسمه هاي سنة بدن كتجي ماشى عدة دونتين جيستا يعني وهلك ومع السلامية أو دولة دنا مو هاي يسفع عند عاب إن أنا لا حساب من ممكن إن كسور كذا إني كات مع سفر الجوسي تاعي وحكى له دعي كرا إنه مو هاي هلك كسي وضع أو يلاهض أرمى نصوى يرتي ninkaas waynu eegi doonaa muxuu ahaa waxa uu yiraahdo laba arrimood la kala saaro Soomaalida meel kasta ay joogto laba arrimood aynu kala saarno shacabka Soomaaliyeed yani arrinka dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia haysato ee magacyada kala duwan loo bixiyay muranka doodeenu maanta magacyada ma aha waxa weeye waa weeye dhul aan la siin marnaba xorriyadiisi xaqqa ka tashiga marna lama siin dhulkaasi maanta waxa weeye wuxuu u baahan yahay inuu ka garab istaagno xaqqa ka tashiga xaq taqriir al-masir inuu helo waxa weeye waa muqaddas inay ummadaasi iyagu isu yimaadaan oo taladooda gacanta muxuu la siiyo oo iyagu ay maanta ay yiraahdaan waxa weeye ama waxa weeye dal madax banaan baan nahay magaca leh ama waxaanu ku biirnay muxuu ahaa dhulka Soomaaliyeed Djibouti baan ku biirnay Soomaaliland baan ku biirnay Soomaaliya aan ku biirnay ama waxay oran karaan Ethiopia aan ku biirnay maalinta iyagu taladooda waa inay muxuu ahaa ka soo goodaa meeshay doonaan ku biiraan waa in dadka horto loogu soo celiyo awoodoodii xaqaas aynu ku garab taaganahay dhulkaas waa dhulkeena marna ka tanaasulmeen arrin kalena hala kala saaro oo maanta yaan muxuu ahaa la oran muxuu ahaa waxa weeye Sheekh Cabdi Ilay yaan la raacin Sheekh Cabdi Ilay suuragal ma wixii raacay isaga iyaga xora laakiin يعني عده اضحك على من تضحك عليه على من تستطيع ان تضحك عليه يعني خيامين قفكت خيامين كريس عبدي له قفكت ما انت يقول شيكين كريس لحن ليلى هذا اورميه صومالي بس لينيسا ugu sheekay marka hore waxa weeye waa in laga takhalusaa adiga kadibna aan u soo jeesana Ethiopia maxaan Ethiopia ka doonaynaa marka hore waa in adiga ka takhalusno khudwada yani khudwada koobaad waa in adiga laga takhalusaa oo yani ay imaadaan dad ay Soomaalida halkaas raali ka yihiin ka way doonaan baan noqdaa ay raali ka yihiin sababta waxa weeye dad mucaarada jiray dad halgamaya jiray dad muxuu dadku doonayaan baa jiray dadku waxay doonayaan ay imaadaan marka hore kadibna muxuu iyadoo la midaysan yahay ayaa Ethiopia muxuu Misr wada fadhiisanaya waxa weeye Soomaali oo midaysan oo Soomaalidii kalena ay garabkooda taagan tahay ayaa Ethiopia loo oranaya waxa weeye waa kaas waxaan yaa lagu mashquulin shidaal ba muxuu Oromo cunaysa iyo cabisa iyo waxaan waxa weeye waxay ku xirantay Soomaalida oo midowda oo arrinka ka midowda ayaa muxuu ay ku xirantay yaana lagu mashquulin muxuu Oromo muxuu soo weerartay Oromadu waxa weeye waa dadkii madaxa lagaga taagnaa Tigreegu madaxa kaga taagnaa Oromadu 3 sanadood iyo dheeraad bay banaan baxayeen oo la leeynayay oo laga xidhay ma internetka laga jarayay oo qadadka telefoonka laga jarayay oo aan warbaahinta adduunka halka galay yani ma dadaalkii uu sameeyay Jawaar Maxamed iyo in kooban ayaa ma warka Oromada lagu ogaa marka waxa way xasuuq baahan baa ka dhacay oo Tigreegu uu ku guuleysan way aakhirkii Abiy Ahmed wuxuu ku yimi gadoodkii Oromada marka Oromada istiraatiijiyadan aan ahayn Cabdi Ilay wado waa inaynu kula dhaqanaa استراتيجيات او waxaygana aan helo waxaagana hel Oromiya waxaagana aqliimkaaga iyo gobolkaaga iyo dawladdaada xorba oo anigu xuquuqdeeda aan raadinay laakiin Cabdi Ilay inuu maanta markuu soo xasuuqay dadkii uu dadkii soo baabacsaday inuu yiraahdo maanta maxaa laga kaco maya
laga yeeli maayo maanta waxa weeye codkiina qolada tooska soo gashay iyo qolada burcada isu bixisay dhalinyarada gaamuurtay yani meel ay ku gaamuureen shalay bay maxaa la sameeyay yani ururka dhalinyarada gaamuurtay ee heego kuwa cabdi ula bixiyo oo baldajiya masaarida baldajiya kuwa muxuu ahaay waxa la yiraahdaa kuwa jirida ah burcada ah ee dawladuhu adeegsan dad iyagu adeegsadaan dadka laaya suuqa oo halkii ay dawladdu iyadu xumaan dadka soo leyn lahayd ama dadka qaban lahayd ama dadka rasaasay lahayd bay jiri hubaysan iyadu ay dabada ka wado ay dirtaa oo xumaan meesha ay doonayso ay u dirtaa waxa loo yaqaan baldajiya kuwaas xumaan heegona waxa weeye baldajiyada dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato waayahay marka la idin dhageysan maayo adiga iyo baldajiyadaada adiga iyo taliskaaga nimankii xumaan maafiyada waa la idin la xisaabtamay Soomaalida waan u sheegay mujrimiinta ugu waaweyn ee aan doonayna magaalada qaybtaan aan doonayna in la xisaabtano maxkamad soo istaajino Cabdiilay kow waxa weeye Cabdiilay waninka waxa weeye inta uu madaxweyne ahaa waliba ma 2010 malane ayuu madaxweyne noqday ilaa 2008 sano waxa weeye in koor ay isagu shaqeynay Cabdiilay wuxuu ahaa hoggaanka nabadgelyada hal magana nabadgelyada mujrim buu ahaa dadka baaba'sada oo xasuuqa hoggaanka nabadgelyada ayuu ahaa inta soo sanadoodna dadku baaba'sanay inta soo sanadood waxa weeye dadku muxuu leynayay dumarka ayuu muxuu taliskiisu kufsanayay Soomaalida ayuu muxuu Ethiopian ka dhigay isaga muxuu dhul badan uga tanaasulay Ethiopia qayb gobollo kale uga tanaasulay oo Oromada maanta uu leeyahay dagaalama isaga muxuu dhulalsiiyay ma garateen Cabdiilay waxa weeye wuxuu ahaa hoggaanka nabadgelyada waxa ku maqan dad badan baa ku maqan dadkaasi haday ka tanaasulay iyaga xora una malayn maayo Soomaali maanta dadkii u baabasday Cabdiilay muxuu ahaayay inuu ka tanaasulay marka Cabdiilay waa kow dadka mujrimiinta aan doonayeen magaalada qorataan labo magaca kale qorta Cabdiraxmaan laba goole magaca waxa weeye magaciisa waa saddexan yahay laakiin magaca caan ku yahay ina laba goole ama Cabdiraxmaan laba goole walaalkiina uu jiraayo deeq laba goole laakiin Cabdiraxmaan laba goole wuxuu yahay Cabdiraxmaan laba goole waa mujrimiinta waa weyn kamid waa ninka haysta ciidanka Liyu Police ciidankan booliskan ay dhulka Soomaaliyeed Itoobiya haysato ciidanka ka howlgala ayuu haystay waa ninka dhammaan xasuuqyada oo dhan geysanay waa ninka labaad ee mujriminimada Cabdiraxmaan laba goole waxa weeye yani maanta meel ay u baxsadaan ma jirto haddaad u soo baxsadanaysaan Hargeysa u soo baxsan maysaan Hargeysa u malayn maayo in Hargeysa la idinku soo dhaweynayo Burcana ma soo gali kartaan waan maanta ku suganahay taariikhdu maanta 4 bisha 8 2018 malayn maayo inaad halkan imanaysan Burco magaalada Soomaalida la idinku soo dhaweynaya ma jirto caalamkana mujrimiin baad ka tii waxa weeye waa labada nin baa horta ugu muhiimsan ashqaasta waxa weeye taliyayaashii xabsiyada raggii hoggaanka nabadgelyada soo noqday mid mujrim oo la yiraahdo Mukhtaar Sheekh Suubane waa mujrim isaguna weyn mid sanyara la yiraahdo mid kale oo ilka casal la yiraahdo mid la yiraahdo Nusdariiq war waxaan ku mujrimiinta oo dhan waynu taxaynaa mujrimiinta oo dhan waxa weeye meel kasta ay u soo baxsadaan waa in la soo qabtaa cadaalad la horkeena cadaalad waxay noqotayna waxa weeye waa eegi doona insha Allah biidin ilaa kari waxa weeye maanta waxa weeye Ilaahay waxa weeye nasri buu soo diray ciidamadan maanta loo soo diray tigtiga iyo dhulka Soomaaliyeed loo soo diray ciidamadaasi qayb waxay ka ahaayeen waa kuwii Soomaalida iyo Oromada xasuuqay laftooda ayaa maanta Ilaahay lagu dhigaya Soomaalidii oo Cabdiilay ku diray iyagii baa labadii xaq darrada ku heshiisay ayaa maanta xaqii ku kala beeray ciidamada federaalka Ethiopia iyagu waxa weeye iyaga gacan sii jiray iyaga marka Oromada la xasuuqayo sii jiray gacan ka qayb qaadan jiray marka Soomaalidu Cabdiilay cadaadinayo iyaga gacan sii jiray iyaga Tigray baan haystay Tigraygina waxa weeye waa nafti ugu dambaysa siibis waa khalaas waa inta badan waa u dhamaatay marka kuwii mujrimiinta ee sameeyay ayaa maanta yani Soomaalidu ku faraxsan tahay waxa weeye talaabadan ay sameeyaan waa mid Ilaahay dadka dhibaataysan ee jeelasha ku jira yani Ilaahay ugu hiilinay laakiin haddana ma ogolaanayno gumaysi anu aragtida ka taaganahay yani marnaba in Ethiopia la hoos yimaado la yiraahdo Ethiopian ka mid nahay marna ma ogol waxaan taageersanahay in la siiyo dadkan xaqa ka tashiga waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka ka soo jeeda ama dhulka waa wadan dhan magacyo kala duwan uu leeyahay ogaadana magaca ogaadeeniya
يعني reerka ogaadeen kala yiraahdo ama jabhadda online uma bixin taana Soomaaliya ogaad يعني qof aan waxba ka ogeyn ayuba imika soo hanbaro maxaa loogu bixinayaa ogaadeenaya waxa weeye Ingiriiska u bixiyay sida uu Somaliland Ingiriisku kaga tagay Somaliland oo ah micnaheedu dhulka Soomaaliyeed ayaa ogaadeenaya u bixiyay wuxuu doona ma ka dantu doona ka yeeshay marka magacaas caalamiyan ku diiwaan gashan yahay maamulka ku diiwaan gashan yahay qaramada midoobay ku diiwaan gashan yahay waana la ogyahay maxaa Ethiopia in maxaa lagu daray oo ay iyadu maxaa gumeystii ku daray oo aanay dhulkan iyadu lahayn marka dadka dhulka Soomaaliyeed ama Soomaali galbeed qofkii qof kastaba maxaa yani qof kastaba tala wacnaata Soomaali galbeed qofka la wacnaata ogaadeenaya qofka la wacnaata dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia qaar baa u yeedha kay kula wacnaataba dadka waxaan ku baaqaynaa maanta waxa la idin ka rabaa inaad u midowdaan dadkii idin dulmay oo kamid yahay Cabdiile maanta Cabdiile ninkii kumanaanka kun jeel ogaadeen hooyooyinka ku kufsanayay dadka leynayay reer guraaga maxay barakicinayay tuulooyinka xasuuqayay maanta inuu idinku yiraahdo ila safta de waa doqonnimo iyo nacasnimo waxa weeye yaan la idin mar hore la idin dagay mar labaad yaan la idin dagay maanta Cabdiile meel laga soo wada jeesto mid mar qodobka labaadna inaad midowdaan oo u midowdaan dhamaantiin Ethiopia waxaad ka doonaysaan maanta Ethiopia way haysataa maamulkeeda hoos timaadaan u midooba mar labaad dadka nagu soo biiraya barnaamijkan tooska waxaan u sheegayaa waxa weeye xaaladii Cabdiile meel uu ku sugan yahay ilaa imika lama hayo uu hadlayaaba la yiri waynu eegi doonaa ma ogin ciidamada federaalka gacanta ku haya waxaan rabshada dabcan isaga ka dambeeya kooxdiisa burcada iyo heega iyo wasiiradiisa iyaga rabshadaha kicinaya iyaga maxaa ciidamada federaalka maxaa la dagaalamaya iyaga maxaa sidaa sameynay iyaga u dhigay sheekada Oromo soo weerartay manaha sheekada Oromo soo weerartay marka waxa weeye arrinku halkaas ayuu maxaa halkaas ayuu maraya hal qodob baa maanta jira Cabdiile hadduu balaaba yiraahdo de mooji horta waynu eegi doonaa markaas aynu waynu ka tashan doonaa hadduu yiraahdo waan go'ay waa eegi doonaa waxa weeye waa fikrad cajiib ah hadduu yiraahdo waan go'ay waxa weeye maxaa garabka hala siiyo waa fikrad iyaduna maxaa meesha yani la yaab noqon doonta laakiin waa eegi doonaa laakiin ninkaasi nin geesinimada leh maaha waa meeshii waa la haystaa goormo oran doona maxaa waa laga meesha gebigeedaba waxa weeye meel la haystay ayay ahayd meel uu gebigeedaba dadkii maxaa xoogoodii ka siibay meel uu hubkii ka qaaday reer miyigu ma dagaalami karayaan xitaa hubkii uu ka qaaday Ethiopia u jiciyay Ethiopia dadka maxaa u dhuldhiga intaasaan doonayaa inaan maxaa arrimaha ugu muhiimsan inaan idin la wadaago waxaan kaloo idin sheegayaa meel baa la sheegay inay ahay afdheer inay ahayd baan u maleynayaa baadari baa lagu dilay halka kaniisad maxaa meel kaniisadana waa la gubay meel ahayd ba garan maayo laakiin ujeedkaas oo dhan waxa dan laga leeyahay oo runtii yani meelaha lagu caabuday dad maxaa cibaadooyinkana maxaa runtii ma mudna xaqiiqatan in yani qaabka loo galo si aanay fitnad u dhicin maxaa xagga diimaha oo loodan islaam iyo muslimiin meesha dagaalamay Oromo way noognaayoo waxa weeye islaamka aad ugu badan laakiin maanta waxa weeye yeynan maxaa sheekada ballaarin meesha waxa weeye Soomaaliya hadaynu nahay waxa weeye waa inaynu xaqa ay dhulka Soomaaliya leedahay aynu dalbana si maskaxa u dalbana ayaa la doonayay waxa weeye xooguna meesha kama maqnaanay wixii xoog lagu qaadayna xoog ma lagu soo ceshada ma uqida biquwa la yustaradu illa biquwa anigu waxaan leeyahay Soomaaliya u midooba arrinka Soomaalida kale waxaan arkayaa oo kale alxamdulillah yani maanta waxa la hadlayaa Cabdiile baa sida noqday Cabdiile baa dhacay taliska Cabdiile dad aan hadli jirin baa maanta hadlaya waa alxamdulillah waxa weeye dadkii markii hore way baqayeen waa dadka dabcan halka ku nooleen maxay yani ku noolaa Hargeysa iyo Muqdisho iyo Boosaaso iyo Garowe iyo Dabada ee Soomaalida kale aha kama hadli jirin dhulkaas laakiin maanta Facebook baa buuxsameeyo qof kasta maanta uu ku dhiiraday yani alxamdulillah dad imka dhiirateen oo markii hore dhiiran weydeen waxay ahayd markii hore inaad dhiirataan oo cabsidan maxay ay idinka duusho oo aad midowdaan oo aad nafiina halis u galeysaan saasay maxay geesinimada ku jirta laakiin haddaad imka timaadeen yani halka ka sii wada oo gaarsiiya yani qaybta labaad oo ah intay maxay dhulkan maxay uu gob noqon doono intaas maxay maanta ku soo gabagabeynaya intay daawanaysa aan u jeedo imika 4700 qof aad wad maasantiin saacadaha soo socda wixii halka ka soo cusboonaada waan idin soo idla wadaagaya waxa kale oo insha Allah aan eegi doona insha Allah qaybaha kala duwan ee mucaaradka sida jabhadda onlef sida maxaa dulmadiid xisbiyada kala duwan dhalinyarada meel kasta ay joogaan dareenkooda insha Allah iyo mawaaqiftoodana
وحوي جدال أيام معه إن شاء الله معه كسو جود بدونا لكن وحنقول باقي dadka qaybahooda kala duwan dhulka ka soo jeeda maanta midni ma laydin ka rabaa inaad midowdaan inaad u midowdaan kuwiina ololafta kuwiina dulmidiidka kuwiina siraajka kuwiina maxaa barbaarta odayaasha salaadiinta maanta u midooba maxaa danta maxaa Soomaali galbeed ama danta dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato u midooba inaga joojiya khilaafka marxaladan kuma jirno in la iskhilaafo kuma jirno u midooba xuquuqdiina wixii ay idin mideeyo maxaa ku dhaqaaqa سلامتين وحد لهذي عبد الملك شيخ مساعد أنا كسكن مجال برعة حروت قبل كتوغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته